shirkan oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka guurtida aqooyahanka dhalinyarada cilmiga haweenka siyaasiyiinta iyo guud ahaan garboodka beesha bahwadaag reer Saalax ayaa waxa lagu qabtay magaalada Mindegale waxaana lagu iclaamiyay shir guud ee beesha bahwadaag reer Saalax isugu imaan doonaan 3 bisha May 2021 shirkaas oo beesha kaga tashanayso bedelka garaadka guud ee beeshaasi goorida Allahu naxariistay garaad Cabdullaahi Cali Ciide isla markaana lagu soo dooran doono bedelka garaadka geeriyooday kaasoo hogaamin doona beesha bahwadaag reer Saalax garaad Cabdullaahi Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay godka ha u qaboojiyo inta kadib sida la sheegay wuxuu isu imanayaa reerku hadii Ilaahay garto meel kasta waxa jire oo la isugu imanayaa bedelkii garaadka la isugu imanayaa waxa la isugu imanayaa hadii Ilaahay garto sida la alcaamiyay bisha May oo shanaada sodonkeeda meesha la isugu imanayna waxa soo sheegi doona gudiga soo sheegi doona dib baa laga soo sheegi doona bogcadda meel kasta oo la joogo nin waliba ha ogaado ha lagu tala galo marka hore waxaanu isugu nimi tacsidii garaadkeennii garaad Cabdullaahi Cali Ciid Ilaahay ha u naxariistee tacsidiisii baynu isugu nimi Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay jannadii geeyo dambigiisa la dhaafo inta kadib waxa la go'aansaday oo waqtiga aynu ku yaray oo la balabay bisha May shanaad sodonkeeda in la isu yimaado mugahan mid jooga mid dibad jira mid koona kale jira inaynu ka soo wada qayb galno shirka oo ah shirkii awal baynu qabsan jiray laakiin ka mug weysidii oo ka qotayo weyn waxaan halkaa ka rajaynaynaa u ballabeynaa in aynu wixiina ka dhiman iyo booskii sidaasaynu rajaynaynaa waxaynu kala rajaynaynaa waa heleynaa waana ka soo baxaya waana yeelanayaa mid naafaca in la isla qaatay oo lagu ballamay amiinta ama xilliga hawshan dhamaystirkeeda looga gudbayo oo ah bisha May sodonkeeda 2021 iyada oo dib laga soo sheegi doono goobta iyo meesha la isugu tagaayo waxaan leenahay qof kasta ee mataqaana hawshaas xilkeeda ay saaran yahay inuu ku tashado oo ku tala galo xilliga la sheegay oo la shaaciyay inay dhici doonto hadii Ilaahay idmo intii gaarta sidaas baa la wada qaatay oo la isla qaatay garaadka waxa saaray garaadkeena xilka garaadnimadii baa saaray inaga kaliya garaad ma ahayn ummad badan ummadda harti oo dhan ama daarood oo dhan wuxuu ahaa garaad waa dadkii wuxuu ahaa fayeenkii garaadada daarood buu ahaa Ilaahay baa gartay inuu dhinto janno Ilaahay ha ka waraabso jannada waxa weeye oo la alcaamku uu yahay in bisha May maalinta ay tahay dal iyo maalinta ay tahay sodonka in la isugu yimaado oo bahwadaag mid dibad jira iyo mid dal jooga la isugu yimaado shirka inta ka bacdi waxa la isla qaatay oo halka kan bahwadaagay ay kaga tashatay kolihii ay isugu iman lahayd waqtiga kan kadib oo ay danaheeda kaleetana axwaalaadkeeda kaleetana ku gali lahayd halkii garaadku uu ka baxayna deecidii loo idman lahaa la keensan lahaa waxa loo sheegay inay tahay bahwadaag ama dibadda ha jirto ama dalka ha joogto ama magaalooyinka kale ha dirtaa ha joogto waxaanu maqashiinaynaa bisha May oo bisha shanaad ah markii sodonkeeda la joogo in shirka la isugu iman doono insha Allah wanaga rajaynayna inuu shir khayr noqdo oo shir khaatuma noqdo oo shir lagu guuleysto noqdo saasaanu rajaysanayna beeshu waxa alcaamkeedu yahay bisha shanaad oo sanadka cusuba sodonkeeda in la isugu yimaado mid dal jira mid dibad jooga iyo mid ari la jooga mid geel la jooga maalinta iyada khaliif khayr qaba baa la dooranaya Ilaahay khaliif qabana talada afirta Allah ina ka siiyo waxaan hadii la isu yimi oo tacsidii dhama
dhammaatay waxaa la go'aansaday garaadka booskiisii hartina waa naga eegayaa Soomaali weyna waa naga eegaysaa warshadaha waa naga eegayaa annana waa iska eegaynaa inaanu booskeyga aan dib uga noqon waxaanu go'aansanay inay bisha shanaad sodonkeeda 2022 in hawsha la isaga yimaado lana soo saaro kii khayrka qabay oo Ilaahay u gartay maantaas in Ilaahay uu baan maanta la go'aansaday sintaas aan ogeysiinayna caalamkan u sheegaynaa baa wadaagna u sheegaynaa dadkiina lahaa waaleen sugayaan u sheegaynaa ee aan iska dhaqaaqin oo inuu intaan awdee Cabdullaahi aan ku tagin garaadadii waa jooga waan la soo saaraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu dambeyntiina waxa lagu baaqay qof walba oo ka tirsan beesha Bahwadaag reer Saalax meel ka